dugsiyada al-irshaad schools. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين والدين يا أرطيبة ومعنا عبد القادر يحسدني ساينسكا كسر هذا. وحنا ما أنت وجريد 2 page 75 to 76. وحنا بلابنا unit 6 أو water. وحنا بلابنا 10 عتب كي طبنات كورمي بيها. sources of water. وحنا دقنا عوانك وجوه الريا عوانكنا وجوه الريا. chapter kan wuxuu yahay ardayay sources of water meelaha laga helo biyaha. source wax weeyaan meesha wax laga helo wuxuu doonaba hada waxaas. marka sources of water waa meelaha aynu ka helanay biyaha inagu. water is found biyaha waxa laga helaa in many places meelo kala duwan. biyaha waxa laga helaa ardayay meelo kala duwan. shantan meelood baa ugu caansan si fiican u soo eega. wells waxa weeyaan ceelasha, ponds balayada, lakes haraha ama har marka la jamac laga dhigo waxa la yiraahdaa haro. marka haraha ayaa la yiraahdaa lakes. rivers waa wabiyada, and sea iyo badda. intaasoo meelood baa arday biyaha waynu ka heli karnaa. ciwaankan xigan dhigana maanta waxa weeyaan transporting water. sida aynu biyaha intaan meel ka soo qaadno aynu intaan source-kiisa ka soo qaadno biyaha aynu keen lahayn xaafadaheena. transportation waxa loo yaqaanaa marka shay meel laga raro ee meel kale loo raro iyadoo waxaasi la rarayo ay wax sii qaadayaan. waxa ama diyaarad la saaro ama markab la saaro ama gaari la saaro ama neef xoolaaba la saaro. transportation waxa marka waxa meel laga qaado ee meel kale la geynayo. haddaba transporting water biyaha markaynu source-koodii ka soo qaadano ee aynu xaafadeena keenano inta nooceena adeegsano reer miyiga reer magaalku say kala duwan yihiin waxaasina maanta baran arday. water biyaha is transported in different ways. ways waa wadooyin different oo kala duwan. wadooyin kala duwan ama habab kala duwan baa biyaha meeshooda looga soo qaadaa oo xaafadaheena aynu keensanaa. okay, water is transported biyaha waxa loo soo guuriyaa ama loo soo qaadaa in different ways wadooyin kala duwan ama habab kala duwan from their sources inagoo ka soo qaadana halkii ay biyuhu yaaleen ee Ilaahay dhigay to our homes saan xaafadeena u keeno. waxa arday kala duwan dadka magaalada ku nool iyo dadka miyiga ku nooli sida ay transportation of water-ka ay u sameeyaan ama sida ay biyaha u soo kala dhaansadaan ayaa kala duwan. urban areas haddaba magaalooyinka sida tan aynu ku noolnahay oo kale sidee bay biyaha u dhaansadaan. we use inagu waxaynu isticmaalnaa tankers booyadaynu isticmaalnaa and water pipes iyo water pipes waxa la yiraahdaa qasabadaha biyaha ay inta ceelashii ka keenaan xaafadeena inoo keenaya. xaafadaha qaar qasabadunba ay furtaan dabeetana waxa biyihii ay halka ka dhaansadaan. qaarna waxa uu keena booyado oo taangiga ku shubaan. marka magaalooyinka waxa la isticmaalaa tankers booyado and water pipes iyo qasabada biyood baa la isticmaalaa to transport water si biyaha aynu ugu soo qaadano in our towns. magaalooyinkeena saan biyaha u keeno waxaanu isticmaalnaa tankers oo ah booyado iyo water pipes. marka magaalooyinka maxaa laga isticmaalaa tankers and water pipes. rural areas ama meelaha miyiga ah dadku maxay isticmaalaan. meelaha miyiga people in rural areas dadka ku nool ama dadka jooga in rural areas meelaha miyiga ah use waxay isticmaalaan animals xayawaanada isticmaalaan to carry water. xayawaan oo dhan lama isticmaalo. caruurta qaar waxay moodayaan in bisadaha iyo la isticmaalo iyo ariga iyo la isticmaalo. no, waxa la isticmaalaa geela la isticmaalaa, dameeraha la isticmaalaa. xayawaanada caynkaas oo kale ah ayay arday dadka reer miyiga ah ku soo dhaansadaan biyaha oo xaafadooda ku keenaan. qaarna iyagaaba dhabarkooda ku soo dhaamiya oo xaafadooda ku keensada. qaar kaariyoono isticmaalaan, qaarba waxba isticmaalaan. laakiin maanta casharkeena waxaanu ku dhiganaynaa in dadka reer miyiga ah ay isticmaalaan xayawaanada ma animalska ay isticmaalaan si ay biyaha u soo qaataan. dadka reer magaalkiina tankers and water pipes ay isticmaalaan.
casharkeena maanta unit 10 aynu ku bilaabanay intaas inoogu eegyahay. I hope inaad fahanteen. waad salaamantiin. dugsiyada al irshaad schools